maantiin meelobad ku sugatihiin ku soo dhawaada barnaamijka oo aan kaga hadli doono 10 ka mid ah tirashooyinka ugu caansan shirkadda Bollywoodka filmaanta Hindiya kuwaas oo lacag dartood ku guursaday rag ganacsato ama magac ku leh dalkaas Hindiya iyo dalal kale oo caalamka liiska tirashooyinkan oo ay ku jiraan kuwo ay si weyn Soomaalidu u yaqaanaan ayaa waxay noloshooda u hibeeyeen dad qaarkood ahaan aad ugu weyn gabadha tobanaad ama tirashada tobanaad ee aan barnaamijkan ku soo qaadanayno waa Shilpa Shetty waxay guursatay ninkan odaga ay wada arkaysaan ee Raj Kundra waa ganacsade Indi British kaas oo xiiseeya sawirada iyo ciyaaraha cricketka waxaana uu guursaday gabadhan caanka ka ah Bollywoodka ee Shilpa Shetty qoyska Raj Kundra ayaa ka soo jeeda gobolka Punjabi waxaana uu ku soo koray magaalada London ee cariga waddankaasi Britain halkaas oo hooyadiis ku haysatay ganacsi yar kadibna waxa uu noqday ganacsade weyn oo lacag leh waxa uu Kundra madax ka yahay shirkad caan ah oo qalabka dhismaha soo saarta gudaha waddankaasi Hindiya waxa uu horay u soo furay kafida Kundra kahor inta uusan guursan Shilpa Shetty sanadii 2009 waxaana ay Shilpa u haysaa hal caruur inkastoo xaaskiisii hore sidoo kale aan ugu dhashay atirishada sagaalaad waa Juhi Jalwa waxay guursatay ganacsadahan aad sawirkiisa aragtaan ee Jai Mehta la yiraahdo Jai Mehta waa ganacsade caan ah oo ka soo jeeda India waa wiil ay iska dhaleen Mahendra Mehta iyo Sunayana Mehta waxaana uu madax ka yahay shirkadda Mehta Group oo ku faafsan Afrika, India, Canada iyo Mareykanka sidoo kale waxa uu leeyahay shirkado kale oo waaweyn waxa uu sidoo kale leeyahay koox ciyaarta horyaalka waddankaasi Hindiya Jai Mehta ayaa guursaday Juhi Jalwa oo mar soo noqotay Miss India ama gabadha ugu qurxoon India ahna aktarad ka tirsan Bollywoodka waxaana kaga horeeyay Sujata Birla Mehta iyo Juhi Jalwa ayaa haysta laba caruur oo kala ah wiil iyo gabar Jahnavi Mehta oo dhalatay 2001 iyo Arjun Mehta oo dhashay 2003 aktarada sideedaad waa Sri Devi waxaana ay guursatay Boney Kapoor ayaa ah 64 sano jir soo saare ka ah filmaanta Bollywoodka waxaana filmaantiisa ka mid ah Mr India, No Entry, Jugai iyo Wanted waana walaalka ka weyn aktarada kale ah Anil Kapoor iyo sidoo kale Sanjay Kapoor sidoo kale waa aabaha aktarka caanka ah ee Arjun Kapoor waxa uu haystaa lacag aan caadi ahayn ka hor guurka tirashadana waxa uu soo furay Mona Shorea Kapoor oo u dhashay laba caruur halka Sri Devi uu hadda uu qabo ay sidoo kale laba caruur u haysto atirashada toddobaad waa Amrita Arora oo guursatay Shakil Ladar aktarada caanka ah ee shirkadda Bollywoodka ka tirsan ayaa guursatay ganacsadahan Shakil Ladar sanadkii 2009 oo ay u haysay laba caruur saxaafadda ayaana guurkeeda ku sheegtay inuu ahaa mid ay lacag ku raacday inkastoo markii dambe qoyskan uu noqday qoys sii fiday markii ubad uu ka dhaxlashay gabadha lixaad ama tirashada lixaad ee lacag darteed u guursatay waa Vidya Balan oo lacag ahaan ku raacday ganacsadaha Siddharth Roy Kapoor atirashadana waayihii dambe ku soo shax baxday aflaanta Hindiga ayaa waxay guursatay 43 jirkan ganacsadaha Siddharth Roy Kapoor lamaanaha atirashadan Vidya ayaana ah filim soo saare waxaanu haatan madaxweyne ka yahay shirkad soo saarta filimada dalka India filim soo saarahan ayaa ka soo jeeda qoys caan ka ah shirkadda Bollywoodka waxaana ka mid ah walaalihiis aktarka ahna filim sameeyaha Kunal Roy Kapoor iyo aktarka kale ee Aditya Roy Kapoor atirashada shanaad ee lacag darteed u guursatay waa Ayesha Turkiya waxay guursatay Farhan Azmi sanadkii 2012 waxaana ay isku hayaan hal canug laakiin guurkan kuma aysan farxin qoyska Farhan atirashada afraad waa Kim Sharma waxay guursatay Ali Bunjani waa ganacsade kale waxaana habeenadoodii arooska kadib ay ku qaateen Afrika gaar ahaan magaalada xeebta ee Mombasa ee waddanka Kenya inkastoo aad ugu daan weeyahay haddana waxay ka heshay sababtii ay u guursatay oo ahayd in bangigeedu mar walba buuxo aktarada saddexaad waa Dimbi Ganguly waxaana ay guursatay Raheel Mahayaan gabadhan ka soo jeeda Kolkata ayaa sanadkii 2010 aroos la gashay Raheel Mahayaan waxaana ay dabcan iska xaadirisay liiska dadka lacagta haysta xilliga Rahulka guursaday tirashadan sidoo kale loogu yeero Nubi Mahayaan ayaa ku jira siyaasiyiinta waddankaas Hindiya waxaana uu sidoo kale ahaa barnaamij saare mid ka mid ah tifiyada dalkaasi laakiin arooskooda ayaa fashilmay sanadkii 2015 waana ay kala tageen gabadha labaad lacag darteed u guursatay waa Anil Ambani
oo guursatay Anil Ambani. gabadhan mar soo noqotay daayartii ugu quruxda badan adduunka sanadkii 1975 ayaa indhaheeda ka jeclaatay ganacsadahan caanka ah ee dalkaas Hindiya kaas oo bangigiisa ku haysta lacag dhan 2.5 bilyan oo dollarka Mareykanka waxaana isku hayaan 2 carruur. ugu dambeyntii nambarka koobaad waa gabadha la yiraahdo Selina Jaitley waxaana ay guursatay ganacsadaha caanka ah ee Peter Hack. gabadhan ku guuleysatay gabadha ugu quruxda badan India ayaa 2 carruur u haysta ganacsadahan Peter Hack kaas oo hadda nolol ahaan ay aad isugu faraxsan yihiin. saxaafadda waddanka Hindiya waxay marar badan ay sii baahisay in gabadhan aktarada ka ah Bollywoodka dalkaasi ay lacag ku raacday ninkan ganacsadaha ee ka soo jeeda waddanka Ingiriiska. intaas ayaan ku soo goobaynaa barnaamijkan kale ee gaarka ah ee kaga hadalnay 10 ka mid ah tirishooyinka ugu caansan dalka Hindiya kuwaas oo lacag darteed u guursaday amaba noloshooda ugu hubeeyay lamaanayaal ay qaarkood nolol ahaan u qalbin inkastoo haatan ay noloshooda ku faraxsan yihiin inta barnaamijkan iyo barnaamijyo kaleba waxaad kala socon doontaan page-keena haddii eebaha inoo saamaxo. waad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijkan. haddii aad fikir inoo haysan fadlan qaybta dambe inoogu reeb ee commenteska annaga ayaa arki doonee. haddaad barnaamijyo kale oo kuwan la mida amaba ka xiisa badan u baahan tahay page-keena subscribe leh waad mahadsantihiin. waxaa idila socodsiinayay anigoo Cabdullaahi Axmed Nuura.